inta aanu u gudgelin habka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo xulbada aan su'aal ku weydiiyey adiguse hore ma u isticmaasho xulbada haddii aadan hore u isticmaalin waxaa halkaas ku weyday faa'iidooyin caafimaad ee laga helo xulbada oo aan kaga hadlay muuqaalkaygii hore haddii aadan hore u daawanin muuqaalkii aan kaga hadlayay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo xulbada iyo cudurrada ay daawadu u tahay insha allah muuqaalkan qaybtiisa dambe waxaan mar kale uga hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo xulbada iyo cudurrada ay daawada u tahay haddaba intaan u gudgelin saddexda qaabood ama saddexda nooc ee ugu wanaagsan ee loo isticmaalo xulbada waxaan si gaar ah kaga codsanayaa in aad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka lagsaar pagekana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo sidoo kale xagga hoose kabac ama mention ku dheh qaar ka mid ah asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan mahadsan habka amaba qaabada koowaad ee aad u isticmaali kartid xulbada waa inaad shaaha caan u cabtaa waxaa loo sameeyaa si lamid ah sida aad shaah u samayn lahayd si aad u samaysid xulbada oo aad shaah ugu samaysid waxaad keliya u baahan tahay biyo iyo miraha xulbada in yar biyaha ayaa dabka saaraysaa waxaad ku daraysaa marka ay karkaraan waxaad ku daraysaa in yar oo xulbaha intaad is leedahay maalintaas waad isticmaali kartaa daqiiqado kadib biyuhu waxay bilaabayaan in ay karkaraan amaba ay yeeshaan dhadhanka xulbada waxaad soo qabsanaysaa koob yar ayaad ku shubaysaa miraha ka saar adigoo adeegsanayo shaandho amaba miiro dadku qaar waxay ku darsadaan malab dabiici ah oo aan laga samaynin sokor ayaad ku darsan kartaa si aad ugu hesho faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo xulbada habka amaba qaabada labaad oo aad u isticmaali kartid xulbada si aad ugu heshid guud ahaan nafaqada ku jirta xulbada waa habka shiididda si aad u shiidid waxaa loo baahan yahay in aad habeenkii la dhigtid biyo si aad subaxdii u shiidid waxaad ku darsan kartaa waxyaabaha lagu carfiyo sida toonta iyo liintoo kale waa ku darsan kartaa si dhadhan fiican ay u yeelato deedna markaad shiidid kadib ayaad cabi kartaa amaba aad cuntada ku cuni kartaa si aad u heshid guud ahaan nafaqadii aan kusoo sheegay sidoo kale habka saddexaad ee xulbada waxaad u isticmaali kartaa ama aad isticmaali kartaa iyada oo budaha waxaad ku darsan kartaa juuska gaar ahaan cabitaanada la shiiday oo fruudka dalka laga shiiday markaad shiidid kadib ama waad ku shiidan kartaa sidoo kale waxaad ku darsan kartaa laxooxda amaba canjeerada iyo mishaarida iyo guud ahaan waxyaabaha aad is leedahay waad ku dari kartaa si aad uga heshid guud ahaan nafaqadii aan kasoo sheegay xulbada budada ah waxaad ka heli kartaa suuqyada ayaa ka heli kartaa sidoo kale adiga ayaad gurigaaga ku samaysan karta si aad u samaysid xulbada budada ah ama miraha xulbada inaad budaysid waxaa keliya u baahan tahay in aad marka hore miraha xulbada aad taabo dabka la saartid markaad dubtid kadib adigoo aan ku daraynin wax saliid iyo biyaha looma baahna inaad ku dartid markaad dubtid kadib ayaa waxaa loo baahan yahay in aad ku shiidid qaladada ama makiinada oo aad u isticmaashid hababkii aan horay usoo sheegay sida inaad ku darsatid cabitaanada mishaarida iyo waxyaabaha kale aad is leedahay waa ku cuni kartaa intaas kadib maxay tahay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo xulbada iyo cudurrada lagu dabeeyo intaba waxaan kaga hadlay muuqaalkii ugu dambeeyey oo aan kaga hadlayay faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo xulbada fadlan haddii aad doonaysid waxaad ka daawan kartaa youtube channelkayga youtube ku qor tofaris alcataas si aad u daabatid sidoo kale waxaad ka daawan kartaa facebook pagekeygaba fadlan hayloobin inaad muuqaalka sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xir si ay ugu faa'iidaystaan sidoo kale muuqaalka lagsa pagekana follow dheh si ay kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo geliyo
sidoo kale xagga hoose kaba qaar ka mid ah asxaabta ah si ay ugu faa'iidaystaan muuqaalka. mahadsan intaasaan kusoo gabagabeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.